mar alla markay goobka nagu soo weerareen oo ka tarabiin la wataan annagana aan shacab nahay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ku baxay xalinta shaqaaqo dagaal oo xaafada Caraguduud ee degmada Daynile ku dhaxmartay maamulka degmada Daynile iyo ciidamo hubeysan oo maamulka degmada ku sheegeen in ay dhulboob sameynayeen. duqa magaalada Muqdisho oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray goobta uu saaki ka dhacay dagaalka, isagoo sheegay in si degdeg ah loola xisaabtami doono cid kasta oo ku xadgudubta sharciga. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mid warbixino kala duwan uga dhageysanaya dadka deegaanka iyo maamulka degmada Daynile, isagoo ka dhageystay xaaladda rasmiga ee deegaanka iyo sida ay wax u dhaceen. gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka deegaanka in ay isdejiyaan isla markaana ay ka qayb qaataan xasilinta degmada. waxa uu dhan kale ugu baaqay in ay la shaqeeyaan maamulka degmada iyo ciidamada amniga si looga hortago cid kasta oo caqabad ku ah xasilinta deegaanka. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.